الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين runtii maanta waxaan inta u soo istaagnay inaan ka hadalno arinta fatahaada webiga Shabeelle ee degmada Afgooye iyo eeriyada ku dhowna uu saameyn badan ku yeeshay runtii meeshaas waxa ka dhacday dhibaato xoog badan iyo barakac saameeyay ilaa iyo 6,800 oo qoys ay ka baxaan guryahooda maarna marka dadka Soomaaliyeed dadka reer Koonfur Galbeed iyo nin kasto Soomaali ah oo waxaysto inuu walaalihiisa u gurmado dadka reer Afgooye loo gurmado dawladda federaalka waxaan uga mahadcelinaynaa gurmadkii ay noo sameeyeen ay u sameeyeen shacabkooda iyo dadka reer Afgooye lacagtii 500 oo kun ahayd oo ay ku deeqeen dawladda federaalka wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda iyo dawladda oo dhan waa uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo rabnaa haddii Ilaahay ilaaho hay'adaha caalamiga ah iyo dawlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay u gurmadaan dadkaas dhibaataysan oo biyaha ku dhex jiro oo jiif la'aanta ah cunno la'aanta ah meelay istaagaan la markii taas laga gudbana in loo helo xal waaro si uusan u soo noqonin fatahaada ayaan codsanaynaa annaga haddaan nahay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed deegaankaana iyo Shabeellada hoosena ay tahay meesha dhibaatada ay ka dhacday waxaan u taagannahay waxaan hayno dhan iyo xooganaga iyo taladaanada iyo aqligaanaga aan isugu geyn doonaa dawlad iyo shacabo in dadkaas reer Afgooye loo gurmado iyo dadka kale oo eeriyada degmada Afgooye degan oo ayagana dhibaatada ay gaartay inaan u gurmano u istaagno marka sidaas darteeda cid kasta oo gacan ka geysan karto waxaan rabnaa dadkaas ilaa 7,000 oo qoys gaarayo 6,800 oo qoys oo laga yaabo inay meelo kale sii saameysay sii gaarto xogta aan hadda helayno ugu dambeysay waxa la ii sheegay inay biyo kale ay ku soo dhow yihiin walaweyn ayadana ay walaweyn saameyn ay ku yeelan doonaan marka guddiga fatahaadaha aan u saarnay ee Koonfur Galbeed wasiirada iyo maamulada gobolada ay ku jiraan ayagana waa ku mahadsan yihiin dadaalka iyo shaqada ay wadaan shaqada in la sii laba jibaaro dadkaasna loo gurmado nin allaale iyo ninkii dal iyo dibad joogo oo dadkaas walaalihiisa Soomaaliyeedna u soo gurmado wax allaale wixii la qaban karo la qabto aad iyo aad u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo deeqdii ay bixiyeen dawladda federaalka lacagtii 500 oo kun ahayd waa ku mahadsan yihiin waxaan kaloo ka rajaynaynaa wixii kale soo noqdana inay gurmadkaas ay nagala qayb qaataan oo qayb ka noqdaan cid kasta oo Soomaali ahna waa u furan tahay walaalahooda inay caawiyaan walaalihiina caawiya dhibaatada Ilaahay naga saaro cimiladii iyo waqtigii baa isbedelay xilli fatahaad ma ahayn xilli webi uu biyo keena ma ahayn laakiin cimiladii Soomaaliya oo dhan baa isbedeshay waxyaalo badan ayaa soo ziyaaday marka waxaan rabnaa in inta gacmaha la isqabsado si walaaltinimo ah la isu kaashado ninka daruufta dhibka qabana la garab istaago daruuftaas lagala bixiyo oo la isu naxariisto si Ilaahay noogu naxariisto aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh